habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan hay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada ugu wararka ugu waaweyn waxay hay'adda NRC Norway ayaa sheegtay in barakacayaasha Soomaaliya laga sii barakiciyay meelihii ay u qaxeen ee Soomaaliya warbixin dheeraad ah ayaan idin ka haynaa barakacayaasha Soomaaliyeed wararka kalena waxaa ka mid ah in ka badan 2 milyan oo qof ayaa ka barakacay iyaguna guud ahaanba Itoobiya kadib markii rabshado qowmiyadii halkaas ka dhaceen ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ballan qaaday dib u heshiisiin baarayaasha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa dhinacyada Yemen ku eedeeyay inay sii wadaan dambiyada dagaalka ee ay galayaan caawina waxaanu eegaynaa sababta kubadda shabaq u tahay kubad ay haweenku ciyaaraan warbixin ayaanu idin ka haynaa kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkan waa London caawiya caalamka hay'adaha qaxoontiga ee Norwegian Refugee Council ayaa sheegtay in dadka ka barakacay colaadaha iyo abaaraha laga sii qaxiyay goobihii ay gabaadka ka raadsadeen sida ay sheegayso hay'adani in 204,000 oo qof ayaa laga saaray xeryo ay u qaxeen taas oo laba jibaar ku ah tirada 6 bilood ee ugu horeysay sanadkii hore warbixintan ayaa lagu sheegay in sanadkii tagay ilaa dad gaadhaya 222,000 ay dabayaqadiisii deganaayeen oo laga saaray dhulka ay deganaayeen kuwaas oo hay'addu sheegtay in xoog lagaga saaray iyadoo aan loo marin hanaan sharci ah haddii aynu eegno muuqaaladii ugu dambeysay ee halkaasi waxaynu arkaynaa dadka ugu badan ee ku barakacay gudaha Soomaaliya waxay u qaxeen Muqdisho halkaas oo ay ka samaysteen xeryo ku meel gaara kuwaas oo ay hadda la sheegay in qaarkood mar kale ay u baahan yihiin ay ka sii qaxeen halkaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa bishii la soo dhaafay soo dhigay Twitterkiisa isagoo leh magaalada Muqdisho waxay u baahan tahay buu hab dhameystiran oo uu ka yimaado buu gudoomiyuhu caasimadda oo dhan waxaana uu codsi u diray Soomaalida iyo beesha caalamkaba haddii aynu eegno haddaba maxaa sabab u ah in dadkani ay kolba sii barakacaan Axmed Cabdi Nuur oo BBC Soomaali ka tirsan ayaan su'aashaasi weydiiyay dadkan laba sababood ayaa kordhisay tirada barakacayaasha mid waa xaalad dabiici ah sida abaaraha iyo roobabka tan labaadna waa dhibaatada colaadda iyo dagaalada oo marka ay dhacaan ay dadku deegaanadooda ka barakacaan intaas iyadoo ay jirtay muddo dheer ayaa haddana waxaa hadda ku soo kordhay in dalkii ay ka samaysmeen maamulo ama dawlad dhexe ha noqoto ama dawladaha hoose kuwaas oo isku dayaya inay soo celiyaan amarkii iyo kala dambeyntii iyo bilicdii magaalooyinka marka dadkii guryaha iska degay ama dawladu ha lahaato ama dad gaara ha lahaadeen ayaa laga bixinayaa iyadoo aan haddana loo qorshayn meel ay ku bedeshaan oo ay degaan oo adeegyo iyo nolol ay ka helaan waxaanu isku daynaa haddaba inaanu la xidhiidhno dawladda iyo maamulka Banaadir laakiin nooma ay suurtagelin waxaanu qaybta dambe waraysi idinka haynaa xogayihii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee Soomaaliya khubarada xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dambiyo dagaal ay ku kaceen dhammaan kooxaha ku hardamaya Yemen warbixintoodii koowaad waxay ku eedeynayaan in xogaga dawladda oo ay caawinayso isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo iyo Xuutiyiintu ay iyaguna ku fashilmeen wax ka qabashada halkaasi waa kuwan muuqaaladii qaar ahaan oo muujinaya dhibaatooyinka dalkaasi ka jira waxa ay sheegeen in dhimashadu ku timid dadka rayidka ah badankeeda ay sababeen duqeymaha isbahaysiga kuwaasi oo si kale aan socod lahayn bay yiraahdeen iskuulada iyo cisbitaalada ku dilaya kumanaan qof dhibaatada banaadnimo ee Yemen ayaa waxaa uga sii daray cudurka daacuunka sanadkii tagay toddobaad gudihiis ayaa 50,000 oo qof ay cudurkaasi uu ku dhacay cudurkan daacuunka oo uu keeno virus loo yaqaano Vibrio cholera kaasi oo biyaha laga qaado si fududna ku faafa Yemen ayaa ka mid ah dalalka sida xun ugu faafay
laakiin baa la leeyahay imika rajo cusub ayaa jirta nidaam cusub ayaa la isticmaalayaa si loo soo liyo dilaaca cudurka kaasi oo ka caawinaya yaraynta cudurka daacuunka ee Yemen. Caaisha Afrax ayaa inoo faahfaahinaysa. waa daacuun xad dhaaf ah sanadkii tagay ilaa 1 milyan oo kiis ayaa laga helay dalka Yemen. in ka badan 2,000 oo qof ayaa dhimatay, badankooduna carruur ayay ahaayeen. tan ayaa sabab u ah hanaan nadaafadeed oo roobabka xooga badan ay baabi'iyeen oo sababay in bulaacadaha ay jidadka qulqulaan, balse hadda xal ayaa jiro. shaqaalahan caafimaadka waxay diiradda saarayaan deegaamada ka hor roobka intuusan dilaacin daacuunka. waa in ay biyo iyo saabuun yaalaan guriga mar kasta, waa muhiim. taladooda nadaafadeed waa ay fududahay, balse waxtar muhiim ah ayay leedahay. shaqaalaha UNICEF ee ku sugan goobta waa u muhiim in ay sii saadaalin karaan goobta iyo goorta uu ka dilaaci karo cudurka. marka inta ay gargaar u diri lahaayeen kiisas badan oo la soo ogeysiiyey, waxay isticmaali karaan tiknoolajiyad bil kasta markay kulmaan. xafiiska saadaasha hawada ee Britain iyo saynisyahanada dowladda ayaa sameeyey hanaan saadaalinaya 4 isbuuc ka hor meesha uu daacuunka dilaaci karo. waxay soo saareen khariidad ay la socdaan saadaasha dayax-gacmeedka ee roobabka iyo akhbaarta meelaha ugu dadka badan. meelaha casaanka ah waxay muujinayaan goobaha ay u badan tahay inuu cudurku ka bilowdo, waana meesha loo dirayo kooxaha caafimaadka. akhbaarta dayax-gacmeedka waxa ay shaqaalaha gargaarka u fududaynaysaa inay tallaabo ka horeeyaan bilaabashada daacuunka. sanadkii la soo dhaafay ilaa 50,000 oo kiis ayaa isbuucii la heli jiray, sanadkanna ilaa 2,500 oo kiis ayuu hoos ugu dhacay. waxaa la filayaa in si hordhac ah loo sii saadaaliyo, taasoo yareyn karta tirada dadka uu daacuunka ku dhici karo. waxaa jiro walaac ay qabto qaramada midoobay oo ah in xanuunkan uu mar kale uu dilaaci karo, laakiin natiijada hordhaca ah ee hanaankan cusub wuxuu leeyahay dhiirigelin. waxaana jiro qorshayaal tiknoolajiyadan lagu geynayo meelaha uu daacuunku ku badan yahay. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta sharci ahaan u saxeexay xeerka kufsiga oo hore baarlamaanku ay u ansixiyeen. xeerka ayaa mamnuucaya dhammaan kufsiga iyo xadgudubyada lagula kaco haweenka iyo guurka carruurta. xeerkan waxaa soo dhoweeyey ururada xuquuqda ee haweenka. ruushka ayaa ku dhawaaqay dhoolatuskii militariga ee ugu weynaa tan iyo wakhtigii Sofiyeedka. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in carbiska dhacaya bisha dambe ee Foxok 2018ku inay ka qayb gali doonaan 300,000 oo askari iyo 1,000 diyaaradood in ka badan. kadib markii Russia ay qaadatay Crimea 2014 ayaa ruushku sheegay inay dhisi doonaan ciidanka badda. cilmi baadhis cusub oo lagu sameeyey dalka Shiinaha ayaa sheegaysa in hawada wasakhaysani ay qofka garaadkiisa hoos u dhigi karto. daraasadan ayaa sheegaysa in marka qofku hawo wasakhaysan si dhex joogaba ay hoos u dhigayso maskaxdiisa. hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in 90% dadka adduunku hawo aan fiicnayn ku neefsadaan. Ethiopia in ka badan 2 milyan ayaa ku barakacay dagaalada qowmiyadaha u dhaxeeya ee dalkaasi. boqolaal ayaa dhintay ilaa markii uu soo cusboonaaday dagaalka u dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida horraantii bishan. koonfurta waddanka waxaa sidoo kale ka jira barakac xoogan oo ka dhashay dagaal qowmiyadeedka. hay-adaha gargaarku waxay sheegayaan inay taasi kordhisay dhibaatada bani'aadamnimo. Cabdiraxmaan Cadow ayaa ka warramaya. kan oo gacmo madhan ayaa guryahooda ka soo cararay, waxayna u baratamayaan wax kasta oo ka goyn kara gaajada iyo qabowga. maalmo gudahood ayaa magaaladan yar waxa ay hoy u noqotay in ka badan 60,000 oo qof oo ka soo baxsaday dagaal u dhaxeeya qowmiyadaha Oromada iyo Geediyo ee dega koonfurta Itoobiya. inta badan waa carruur iyo haween nugul sida Burtukaan Maru oo 2 toddobaad ee soo socda u mali doonta canugeeda shanaad. qof dumar ah oo uur leh way ku adag tahay halkan, bal fiifiiri bi'adan sideen cunugayga halkan ugu dhali karaa. dowladda waxa ay leedahay waad ku laaban kartaan guryihiinne, welina dilal ayaa dhacaya. waa dhibaato weyn. kuwani waa dhibanayaal kale oo ku soo barakacay dagaal qowmiyadeed oo ka dhacay gobolka Soomaalida Itoobiya. ciidamada deegaanka Soomaalida ee Liu Police ayaa lagu eedeeyey in ay bartilmaameedsadeen dadka aan Soomaalida ahayn ayna geysanayaan dilal, jirdil iyo boob.
waxaa iga dhintay 6 qof oo qoyskayga ah, carruurtayda waa la gowracay, xaaskayga gabadh la dhalatay iyo hooyadeedna waa la dilay. dagaallo beeleedyada noocaani oo kale ah kuma cusba Itoobiya, balse waa xajmiga iyo wakhtiga barakacan u dambeeyey oo ay dad badan la yaabeen ayna walaac ka qabaan amniga dalka. hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in ka badan 2 milyan oo qof in ay ku barakaceen dalka oo dhan tani iyo bishii Sebtembar, ayna aad uga baahan yihiin gargaar. waxaannu aragnay dad aad u badan oo tiradoodu ay ku dhowdahay 700,000 oo qof. dadkaasi muddo kooban ayay ku wajaheen dhibaato ka dhalatay qulqulatooyinka. waxay miciin bideen dhismooyinka danta guud sida iskuullada oo kale iyo xarumaha tababarka. waa walaac ay dowladdu qirsan tahay. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ballan qaaday in uu wax ka qabanayo colaadaha khatarta gelin kara isbedelada dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee uu la yimid tani iyo intii uu xilka qabtay bishii Abriil ee sanadkan. dad badan oo soo barakacay ayaa hadda dibudejin helay, halka qaar kalena ay weli sugayaan. waa in wakhti iyo dadaalba lagu bixiyaa sidii dadkaasi dibudejin loogu samayn lahaa. waxaan ka shaqaynaynaa arrintaasi, horumar ayaana ka samaynay. waxaan gacan ka geysan doonnaa sidii muwaadiniinta dibudejin loogu samayn lahaa goobihii ay ka soo barakaceen. taasi ayaan ka shaqaynaynaa. balse waxay qaadanaysaa wakhti dheer in dadka halkan ku sugan laga dhaadhiciyo arrinkaasi, kuwa oo waayey wax walba oo ay haysteen kana walaacsan colaadaha soo laalaabanaya. weli waxaa inoo soo socdaa aargoosatada loo dhoofiyo Shiinaha oo xaalku ku adag yahay, warar kale, laakiinse waxaynu gelaynaa qadar nasasho ah. weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka, ballan idin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn. hay-adda NRC ayaa sheegtay in barakacayaasha la sii barakiciyey meelihii ay u qaxeen ee Soomaaliya ay laba jibaarantay. waraysi ayaa inoo soo socdaa. caawana waxaanu eegaynaa sababta kubadda shabaqu u tahay kubad ay haweenku un ciyaaraan. bal haddaba aynu dib ugu noqonno arrinta barakacayaasha. sida ay sheegtay hay-adda NRC, ilaa 204,000 oo qof ayaa laga saaray xeryo iyo guryo ay u qaxeen oo laga sii barakiciyey, taasi oo laba jibaar ku ah tirada 6 bilood ee ugu horreysay sanadkii hore. warbixin ay soo saartay hay-adda qaxoontiga u qaabilsan Norway ayay ku sheegtay. waxaa hadda khadka Nairobi toos ugu jira Maxamed Cumar Macallin oo isagu ku jira oo hore u ahaan jiray xogeeyay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalka ah. maxamed ku soo dhawow BBC-da. walaal aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. maxamed, maxaa dadkan haddii aynu hore u galno barnaamijka, maxaa dadkan ugu wacan loo sii barakicinaya dadkan barakacayaasha? wallahi horta runtii walaal arrinta barakaca Soomaaliya waa waxay soo socotay muddo 20 sano ka badan sidii dagaaladii sokeeye u bilowdeen. marka arrintan hadda yani barakaca guud waxa soo waan garanaynaayo macnaha waxa ka mid ah waxyaabahan dabiiciga ah oo Ilaahay keenay sida abaaraha iyo fatahaadaha iyo kuwa kale macnaha annaga gacanteena aan ku sameeyno macnaha dagaalada iyo colaadaha wax la mid ah. laakiin hadda arrintan infectioniska la yiraahdo oo dadka awal soo qaxay soo degay macnaha magaalooyinka waaweyn in haddana la sii kiciyo walaal waxaa sabab u ah arrimo badan ay ku jiraan. tusaale ahaan markii aan ku siiyo in dhulkii Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn in ay qiimahoodii sii kordheen oo dhulkii uu noqday macnaha qaali, taasna ay keentay markaas in dadka ay aad ugu baahdaan dhulka. midda labaad waxaa ka mid ah isla dadkii qaar dhulkii lahaa oo mar hore maalgeliyey in ay hadda u arkaan dhulkooda inuu usoo celinayo faa'iido, marka dadkii deganaa ku qasbaya inay mar walba macnaha ay ka kacaan. midda kale waxay tahay dowladda dhulkii hore ay u lahayd oo yani ayadana rabto in ay maalgelin lagu sameeyo, dib u dhis loo sameeyo, xarimihii dowladaha dib loo soo celiyo, oo ayadana sababaysa in dadkii markaas masaakiinta ahaa deganaa laga kiciyo. iyo tan ugu weyn oo runtii ah in Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn hadda sida Muqdisho oo kale in ay ka socdaan waxyaabaha la yiraahdo urbanization ama koboc macnaha magaalo, in magaaladii ay sii fidayso markasta. waad mahadsantahay Maxamed. su-aasha kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye, raalli haw waa inaan su-aalahana soo koobkoobna haddii aad ka rasid Maxamedowe. dowladdaad adigu waad ka tirsanayd
hay-adda weliba arrimahan qaabilsan baad ka tirsanayd maxaa dowladda Soomaaliyeed oo adiguna hay-adda weliba fadhida maxaa wax looga qaban laayahay dadkan barakacayaasha ay dhibaatadu haysato walaal waa run macnaha dowladda Soomaaliya horta run ahaantii wax badan baa la isku dayay in la sameeyo qorshe wax looga qabanayo dadka barakacayaasha ah oo runtii hadda siyaasadda dowladda waxaa ka mid ah qayb weyn oo yani mashruuca horumarinta qaranka qayb ka mid ah waxay tahay in la helo xal waara dadka barakacayaasha ah halkaas waara markuu wuxuu ku saleysan yahay dhowr macnaha arrimood oo waaweyn marka hore in la helo deegaan dadka ay degaan oo ammaan ay ku helaan marka labaad in la helo meelo qutulyoonkooda iyo waxyaabihii dailiga ay u baahnaayeen ay ka helaan in ammaan ay helaan in caafimaad ay helaan in bulshada ay ka mid noqdaan marka waxyaabahaas oo dhan policygaas uu degsan yahay laakiin nasiib darro macnaha sidii macnaha la rabay mar walbaba uma hirgasho taasna waxaa keenaya challenge badan oo dhaqaale la'aan ay ka mid waan gartay maxamed dadkani waa dad Soomaaliyeed miyana iyagu xaq lahayn inay meesha doonaan degaan oo inay dhul degaan oo ay deegaan yeeshaan oo meelina ku noolaadaan ilaa waa dad iyaguna wadaniyiin oo dalka u dhasheen walaal waa run xaq way leeyihiin dadkan waa citizens of Somalia dad wadanka ka tirsan laakiin dhulka Soomaaliya sida aad og tahay waa la kala leeyahay oo dhulka macnaha dad qaar ayaa macnaha dad private u leh qaar ayaa dawlad leedahay qaar ayaa macnaha dad kale leh marka dhulkii markii yani dad uu dago waxaa laga yaabaa in qofka lagu soo baahdo aad baad u mahadsan tahay maxamed cumar macalin xogayihii hore ee dowladda Soomaaliya ee arrimaha dadka barakacayaasha ee u qaabilsanaa aad buu mahadsay oo Nairobi khadka Skype-ka kaga jiray argoosatada loo dhoofiyo Shiinaha ayaa sanadihii dhawaa way sii kordhisay balse imika waxa istaagtay markii argoosatadaasi Mareykanka la saaray 25% cashuura taasi oo Shiinuhu ay kaga argudanayaan cashuurta uu Mareykanku alaabtiisa saaray ganacsatada argoosatada ayaa haddaba aan hubin waxa mustaqbalkoodu noqonayo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya in si lama filaan ah ay u noqdaan goob dagaal oo saameynaya kalluumaysatada ka ganacsata aargoosatada ee aan isdifaaci karin dagaalka u dhexeeya Washington iyo Beijing ee sii xoogaysanaya Shiinuhu waxa uu beegsaday aargoosatada loo dhoofiyo oo 25% uu ku soo rogay cashuur isagoo xanibaad ku sameeyay suuqa badeecadan ee weyn qiimo dhimisna ku sameeyay lacagta lagaga iibsado gudaha Shiinaha kalluumaysta Chris Welsh ganacsi markiisii horeba aan xaaladiisu wanaagsanayn tani waa uga sii daraysaa walwal weyn ayay nagu haysaa sabab fudud haddii aan kuu sheego dhammaadka toddobaadkan ma garanayo meesha ay ku dambaynayso badeecadayadu caadiyan 20% ayaa badeecadayada tegi jirta Shiinaha shirkadani caadiyan waxay u dhoofisaa aargoosato nool oo gaadhaysa $100,000 maalin kasta shirkadan 20 sano ayay la macaamilaysay macaamiisheeda 5 ilaa 7 kun maalintii 7 maalmood isbuucii maantana eber ka hor intaan cashuurta lagu soo rogin 30% Shiinaha ayaa loo iibgeyn jiray bakhaarkan lagu rasaynayo aargoosatada naadiye waxa ay ku khasabtay inay shaqada ka joojiso dalool ahaan shaqaalaheedii waxaan ka mid ahay dadka lacagta ka soo qaada Shiinaha waxaan ka mid ahay dadka hoos u dhiga in dhaqaalaha ganacsiga hoos u dhaco maxaa la ii ciqaabayaa khatar intee leeg ayay ku tahay ganacsigaaga waxaa laga yaabaa inaan badbaadno sanad kale ma badbaadi doono kijadan lagu diyaariyay aargoosatada mayna waxa aad moodaa in laga barakaysto sababtaas ayay dalxiisayaashu uga yimaadaan meelo fogfog baahideeda oo xilligan badan ayaa kaliftay inay Shiinaha ku yaraato laakiin xagaagii waa uu dhammaanayaa dhowr toddobaad kadib kayuuganina waa uu yaraanayaa markaasi ganacsiga aargoosatada ee xeebahani xilliyo sidan ka xun ayuu soo maray sida wixii ka dambeeyey dhacdadii 11 Sebtembar oo ay dadku u arkeen in aargoosatadu ay tahay cunto lagu raaxaysto oo ay markaasi joojiyeen laakiin dagaalkan ganacsiga ee ahmiyadda koowaad Mareykan ayaa iska leh saameyn xun ayay ku yeelatay shaqooyinka xeebaha Mareykanka iminkana badiba ganacsatada aargoosatada shaki weyn ayaa la soo darsay tan iyo markii la aasaasay dhammaadkii qarnigii 19aad kubadda gacanta waxaa aalaaba ciyaara dumarka iyadoo ay jiraan dalal dhowr ah oo ragguna ciyaaraan haddaba maxaa kubaddan u kala yeelay dumarka BBC-da ayaa su-aashaas jawaabteeda waxa ay weydiisay dadka khibradda u leh ciyaarta oo ka qayb galay tartanka kubadda shabaqa Afrika ee lagu qabtay Lusaka Zambia bishan August horaanteedii maxamed xaraare ayaa inoo haya
waa tartan u dhexeeya ugandha iyo zimbabwe oo lagu tartamaya hanashada koobka kubadda shabaqa ee afrika ugandha ayaa ugu dambayntii ku guulaysatay kubaddan shabaqu waa kubadda keliya ee la sheego inay dumarku leeyihiin inkastoo ay jiraan rag cayaara waa dareen khaas ah haddii aad taariikhda dib u eegto dumarku ma lahayn cayaar gaar ah sida kubaddan shabaqa oo ay iyagu ku xoogan yihiin haddaba maxaa sababay in dumarku u badnaadaan kubaddan shabaqa ragga ku soo biira kubaddan waxay canjilaan dumarka waxay idhaahaan waa ciyaar dumar xiriirka caalamiga ee kubadda shabaqa ayaa isku dayaya in ay ilaaliyaan si haweenka iyo gabdhaha ay uga sii qayb qaataan waxaan wada ognahay in marka ay ragga ka qayb qaataan gabdhaha dhinac loo riixayo dhanka kale waxaa jira fikir kale oo soo shaacbaxaya waxaa la leeyahay si kubaddani u caanbaxdo waxaa loo baahan yahay in raggu ka qayb galo dhab ahaantii kubadda shabaqu ma aysan helin aqoonsi caalami ah amba dalalka kala duwan ee laga cayaaro waxaan odhan lahaa haddii rag lagu soo daro waxaa laga yaabaa inaan helno aqoonsi sababtoo ah hay-adaha wax go'aamiya inta badan rag ayaa maamula iminkaba waxaa jira rag badan oo ku lug leh qaybaha kala duwan ee kubaddan haddii ay noqon lahayd dhanka tababarista iyo garsoorka netboolka ayaan u soo digarogtay anoo ka imid basketboolka 15 sannadood ka hor waxay igu qaadatay sannad inaan bal ogaado sharciyada iyo sida loo ciyaarayo laakiinse weligay kamaan fikirayn inaan heerkan ka gaadhi doono xiriirka kubadda shabaqa ee adduunka ayaa ku qiyaasay in 20 milyan ee ciyaartan ka qayb qaadata dunida ay ugu yaraan 10% rag yihiin dalalka Australia iyo New Zealand ayaa hogaaminaya dhanka ragga ilaa 53 xubnood ayaa si buuxda uga tirsan hay'adda kubadda shabaqa ee adduunka ha yeeshee 3 xubnood oo keliya ayaa leh horyaallo heerkoodu sarreeyo waa dalalka Australia New Zealand iyo England waxaa halkan fursado ka helay dhowr ciyaartoy oo Afrikaan ah laga yaabay in kubadda shabaqu sii ahaato mid dumarku ku badan yihiin ha yeeshee gudaha Afrika qaar ka mid a hablo cayaari lahaa ayaa la sheegaa inaanay ku dhiiran karin diimaha qaarkood ma oggola in gabdhuhu xirtaan dhar gaagaaban si ay u cayaaraan sidaas darteed waxaan oggolaannay in gabdhuhu ay xirtaan dhar waafaqsan diintooda kubaddan oo muddo dheer soo jirtay dumarkuna uu ku badnaa ayaa haatan la doonayaa inay si rasmi ah uga mid noqoto cayaaraha olombikada adduunka xusuusno wararkii ugu dambeeyey ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijkeenii caawa waa mahadsantihiin nabadgelyo